filla Soomaaliya oo maanta jahwareerkii ugu ballaadhnaa wajahaysa ayaa laba war oo iskhilaafaya soo saartay. Waraaqda koowaad ayaa lagu sheegay in haddii Somaliland Mareykanku aqoonsado nabaddiidku uu xoogaysanayo, halka jawaabta labaadna ay ku sheegeen Somaliland inay ka tirsan tahay Soomaaliya oo aanay ka go'i karin. Haddaba sidee ayaa loogu kala adkaaday diblomaasiyadda? Waa arrimood oo madaxda Soomaaliya mar walba guuldarro u horseeda iyo hal arrin oo ay Somaliland ku gaadhay guul taariikhi ah ayaanu warbixinteennan ku falaqaynaynaa. Kani waa Xasan Sheekh Maxamuud waana madaxweynaha aan kalsoonida haysanin ee Soomaaliya. Muddo xileedkiisa ayaa haatan gabagaba ku dhow, balse waa siyaasiga dagaalkii ugu adkaa la soo galay Somaliland intii uu talada joogay. Dagaalo badan ayaana lagaga guuleystay Xasan Maxamuud kuwaasi oo uu guuldarro kala huleelay. Haddaba maxay tahay sababta Soomaaliya looga guuleysanayaa maadaama oo ay aqoonsi caalami ah haysato sida oo kalena dagaal kula jirtay Somaliland? Sida ay warinayaan xeeldheerayaasha diblomaasiyadda falaqeeya ee isha ku hayay dagaalka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo Soomaaliya dhex marayay ayaa waxay sheegeen in madaxda Soomaalidu inta ugu badan adduunka weydiistaan dhaqaale iyo taageero, iyadoo mashruuc dhammaan waayay ay noqotay dawlad dhiska magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya ka socda. Madaxweyne kastaana waxa uu sii kala diraa intii isku urursanayd isaga oo wixii dhaqaale ana isagu jeebka ku sii shubta. beesha caalamka ayaana hadda indhaheedu ka sii jeesteen Soomaaliya iyagoo oo ku daalay foostada gunta ka daloosha ee aan buuxsamaynba ama si dadaalada istaba joogga ah ee dhaqaalaha uu lagu bixinayo wax natiijo aan laga gaadhin. Marka madaxda Soomaalidu ay la kulmaan madaxda kale ee adduunkana waxa ay weydiistaan dhaqaale iyo dana dhinac kaliya ah oo iyaga lagu taageerayo. Qodobka labaad ee guuldarrada u horseeda madaxda filla Soomaaliya ayaa ah inta ugu badan iyagoo aan kalsooni buuxda haysanin oo teendho hoostooda lagu soo doortay ayaa waxa ay isticmaalaan awood dheeraada oo aanay fulin karin, sida oo kale uurkooda waxa ku jira iyo afkoodu waa kala duwan yihiin. Haddaynu tusaale nool soo qaadanana Xasan Maxamuud oo haatan talada haya ayaa hadalladiisu waxa ay u muuqdaan marka uu warbaahinta marinayo madaxweyne wanaagsan oo doonaya walaaltinimada Somaliland iyo in midnimo iyo iskaashi la helo. oo midnimada sababta loo doonayaa ujeedkeedu ma aha in la isku maysto ama si la isku cagajuleeyo, ee waa in la istaageersado oo la isku tiirsanaado. hase yeeshee Xasan Maxamuud waxa uu afkiisa ka leeyahay uurkiisu way kala duwan yihiin, waxaana ay muujinaysaa inaanu qof Soomaaliya naf u haynin ficilada iyo tallaabooyinka uu samaynayo marka loo fiirsado. wixii kaalmo ah ee caalamku siiyo oo loogu talagalay in lagu dhiso kalsoonida dawlad Soomaaliyeed ayaa uu jeebka ku sii shubanaya madaxweyne kastiiba isaga oo aan u danaynayn ee inta wada joogta kala diraya. balse siyaasiyiinta Somaliland ayaa sidaasi ka duwan, farqi weyn ayaana u dhaxeeya. waxaana aynu tusaale nool soo qaadan karnaa madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro maruu beesha caalamka kula shirayay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa waxa uu sheegay Somaliland inay doonayso caalamka inay wax kala bedeshaan iyo wadamada dunida ku midaysan, iyadoo aan baahi dhinac kaliya aad doonaynin ama se baryootan aanay u imanin madaxda Somaliland magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. kanina waa halka qodob ee ay Somaliland ku guuleysatay magaceedana kor ka dhigay oo haatan ay quwadaha caalamku ugu soo tartamayaan maadaama oo nin baahani aanu gobahayn go'aan lahayn. Somaliland haatan waddanka Mareykanka waxa ay tustay dano iyo baahiyo uu isaga laftiisu doonayo iyadoo kaga bedelanaysa aqoonsi caalami ah, waana sababta aanay waraaqaha iskhilaafaya ee Soomaaliya meel fog u gaadhin.